كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu sii tibaaxaynaa bartamaha bisha Ramadaan ee barakeysan wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala islaamka siiyay nimcooyin badan waxaana kamid ah guulo dagaal furashooyin dhulal badan hadaba aanu milicsana maanta dhacdo kamid ah dhacdooyinkii dhacay bisha Ramadaan oo ku aadanay 17 bisha Ramadaan. furashadii Camuriya waxay dhacday 17 bishii Ramadaan sanadu markay ahayd 223 Hijri oo ku beegnay 838 miilaadi. dagaalku wuxuu u dhaxeeyay khilaafadii Cabbaasiyiinta iyo boqortooyadii Roma. ciidanka muslimiinta waxa hogaaminayay geesigii islaamka ee la dhihi jiray al-Mu'tasim billah. dhanka Saliibiyiintana waxa hogaaminayay Tawfiil bin Mikhail. sababtu uu dagaalku ku dhacay waxay ahayd in gabadh ay afduubteen gaaladii reer Roma gabadh muslimad ah kadibna ay u dhawaaqday hogaankii ciidanka muslimiinta oo la dhihi jiray al-Mu'tasim iyadoo ku celcelinaysa kalimadda لبيك يا أختي. isla markiiba khaliifkii muslimiinta al-Mu'tasim billah waxa loo sheegay afduubkii dhacay kadibna wuxuu diyaariyay ciidan awood leh kadibna waxa lagu duulay Saliibiyiintii. sharafta gabdhaheena muslimaadka waxa loo kicin jiray mowjado ciidama waxa loo burburin jiray dawlado waxana loo duulan jiray Saliibiyiintii reer Yurub. hogaamiyihii muslimiinta wuxuu yiri magaalada ugu difaac adag oo ay leeyihiin reer Yurub kadibna waxa lagu yiri Camuriya. sidaas ayaa lagu saaray magaalada Camuriya go'doon mid ka soo saarnaa 11 bilood. magaalada Camuriya waxay u ahayd isha kaliya ay ku faanaan waxana lagu garaacay hub iyo gantaalo kadibna waxa looga dilay reer Yurub ciidamo dhan 30,000 oo qof. maanta in gabdhaha loo naxariisto ama ciidan loo kiciyo iska daayay waxa dhacda wallahi kuwa nagu hoosno ee ah hooyooyinkeena gabdhaha aanu qabno kuwa aanu dhalna iyo kuwa nala dhashayba inay yihiin gacan ku gabad. deegaanada Soomaalida waxa ka dhacda in gabdha yar ah oo aad u daayar la kufsado la jirdilo kadibna umuunkaba laga jaro markii loo soo xiray raggii falkan sameeyayna si qabiilaysan lagu daayo. arrintaasina ay noqoto arrin u gaar ah gabdhaha oo kaliya maalmo ay mudaharaadaan oo ay murugoodaan ilmeeyaan kadibna hawsha halka lagu xidho. waxa dhacda in ragga qaar ay gabdhaha jir dilaan ku ciyaaraan bahdilaan silciyaan kadibna ku jeesjeesaan oo furaan. gabdhuhu ma mudna midaasi waa musbaax waa kuwa nala dhashay waa hooyooyinkeen waa xaasaskeen aan u dhaxayno marna waa kuwa aan ku ildoogsanayno waa gabdhaheeni aanu dhalnay. fariinteedana waxaan ku soo gabagabeynayaa maansada haddaan maansada bilaabo gabdhuhu waa geed hadhweyno hadhsiiniyo nafci ku roono iyagaa gurigaa dhisaaye iyagaa ubadkaa korinayo markuu ubadkaa bukoodo iyagaa saqdhaxa habeenkii iyagaa sarajoogka ooyo majug iyo nabar bay mutaystaan hadday khaldantay aroortii miyay insaan ahayno khaladku ka dhicin dhammaantood. markuu Mu'tasim dagaal galay isagoo u hiilshay miskiintaas miyay ku dayasho mudnayntaas